العفة عفادنا مرة ودور سنة دمانتت مرة وزنا ذو لقى دور سنة ذو أنا هلك وحين وجد شيدنا أن وحيابها نفط الدون تدمانتت إلهي قرآن ككتل المامي سيبا آيات القرآن في سورة آل عمران إلهي كتل المامي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آيات التنوحي علماء هذان إلهي سبحانه وتعالى وحو كل ميي شنط شيء وعن سنباهيها بنا آدم كه oo ay ka sii farcami karaan shahwaad kale oo tiro badan leh laakiin haddii la duuduubo bay yidhaahdeen shantan baa asalka ah ka ugu horeeya waa xubbu nisaa waa kalgacalka la isu geliyey rag iyo dumarka dhexdooda ilaa xad uu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maa taraktu bacdii fitnatan adarra cala alrijaali min annisaa gadaashay kama tegin buu nebigu yidhi wax kaga khatar badan rag dumar xiriirkooda wax ka khatar badan dhasha jacaylkeeda waa min alfitra abuurka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bini aadamka ku abuuray sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamaya in iyaduna mararka qaarkood xadkeeda dhaafi karto yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wa awlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum كصدحات آيات التلماميسو والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة القناطير وجمع قنطار قنطار كان علماء قاركود وزني كمدا وحا أيكو تلمامان كوني الله بقولو مثقال كوني الله بقولو وقيادات قاركودنا وحدا والجمع الكثير المال الكثير حول التربضا المقنطرة أي المجمعة حولها التربضا ليلة أروريي الذهب يفضأه ومال دمانتي بركة وواتو نبي وكت المامي عليه الصلاة والسلام شعيلك الله قبح ولاسي إنانو بني آدم كوكافتو من انت وأبا هي إنو نسأكد قدقو إنو شعليه إلا حد النبي يقولي هدي بني آدم كو هايستو واديا من ذهب ضوحو ذهب حتى هدو هايستو وحبادي الدون اللي هابو النبي يقولي ضوح اللباط وذهبه شعيلك الله قبح حولهنا ووحا كان بو كمدية مشاكلك قوة وين الدنيا ده ما انت ينكون والله واحد انا الجشع والهلع انت مالك قبطا سيدا اي من طيبا كمدا بيلين بروبلما ده قوة وين الدنيا كجرة dadka xoolaha leh waana sabab dagaalo badan oo maanta dunida ka jira u sababa oo dagaalada dunidu in badan waxay isu taagi waayeen dawladaha qaniga ah raba inay socdaan warshadaha hubka iyo raggan leeyahay waxaan soo saara oo master dhaqaale uu yahay baan rabin dunidu inay nabad ka dhacdo waska hadal tiro dunida salaam caalami baa laga doonaya cidina salaam ma rabto way rag baan dantoodu ku jirin oo warshado iyo qalab u samaystay ay dhaqaale ku helaan qodobka afraad ee meesha ku qorani waa ziina alkhayl almusawwama fardaha ama tira waxay ka qabaan musawwama saa'ima ah oo kuwa la raaca ah ama musawwama ay almuzayyana la qurxiyay ama musawwama tii la suntay midabada kale jaadka lahayd saa doontaba u fasir ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina farduhu day dunida waxay ka mid yihiin waxay dadka maalqabeennada dhaqdaan oo ninku inuu hantileeyay tilmaamta ama qurux loo haysto waagii hore dee malawaaba la fuuli jiray iminka maanta markaan soo socday waxaan arkayay fardihii oo gaadhi lagu wado iyagaaba la raraa iminka oo quruxdeeda iyo orodkeeda iyo waxeeda iyadoo la ilaalinayo iyadaaba gawaadhi gaara loo sameeyo lagu raro ziinaduna dee maanta waa ogtiin fashionka iyo modelada iyo asiyaadan iyo waxa kan iyo dadka sida maankoodii loo gadayba
hab calaamad yaroo saxani ku taallo mara dhinac yar ka dilaacsan waxya dadku modelka dambe maxaa u dambeeyey xataa mobilkeenu sidana waa ka dambaynu raadinaynaa wax ku jirana la garan maayo cusub waa ziinadaas baa inta badan laga rabaa ka shanaad ee meesha ku qoranina waa shahwat albatn alancaam walxarth wixii la cunayey ama xoola ahaa geel iyo lo iyo adhiba wixii la cunayey xalaashahaa ama xarth beer iyo wixii ka soo baxaya walancaama khalaqahaa lakum fiiha dif'un wamanaafic waminha taakuluun walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun waxay culammadu yidhaahdaan shantan shay ee suuraddani sheegtay bay yidhaahdaan waa usuuli shahwaat waa human desireka waxa ugu badan waxaase ka sii farcamaan shahwaad kale oo tiro badan oo meelo kale qur-aanku uu ku tilmaamayo su-aasha koowaad waxay tahay limaada awjadana allahu fiina shahwa maxaa ilaahay inoogu abuurayba shahwaadka kan lowlaaha haddaan iyadu jirin dunidu ma socoteen waa linartaqi baadidoonka kuwan loogu jiro baa ayay noloshu ku salaysan tahay alinsaan biduuni shahwa laa yataxarak insaanku hadduu waxba uu baahan waayo sida dhagaxa uu noqdo laa yataxarak nolosha dhaqdhaqaaq kama jirayo inuu noloshu dhaqdhaqaaqdo waxa kan ilaahay inugu abuuray baa ka mida saa awgeed baa ilaahay wuxuu yidhi zuyina linnaas dadka waa loo qurxiyey yaa qurxiyey waxa xaqiiqa in ilaahay u qurxiyey ilaahay inuu u qurxiyey sidaa awgeed baa culammadu waxay tilmaamaan hadda casrigan dambe intii MRI-gan iyo waxa kan ay soo baxeen qaabkan magnetic formka ee maskaxda loo sawiri karo ee la sawiri karo hadba qofka bini'aadamka maskaxdiisa qaybta functioning ee markaa active-ka ee jirta ilaa xad bay hadda qiyaasi karaan oo ay tilmaami karaan raniin maqnaatiisigaasi alwadiifiya ama MRI-ga aad tidhaahdaan ninku markuu gabadha arko xaggee kacda meelaha maskaxdiisa qaybo ka mid ah aad u shaqeeya xataa waxay tilmaamaan jidhkiisu ilaa 7 hormoonoo kala noocu soo daaya moodadka jidhku uu soo daayo ayuu soo daayaa waxay tilmaamaan maskaxdiisa qaybo ka mida baa active noqda xataa waxay yidhaahdaan chromosomeska bini'aadamka chromosomka labaad baa ka warrama xidhiidhka ragga iyo labaatanaad ayaa tilmaamo bay leeyihiin xidhiidhka bini'aadamka rag iyo dumarka u dhexeeya waxay hadda sawiraan meelaha xubbiga carruurta iyo jacaylkeedii uu ku jiro ayay ka warramaan annawaati almuttaki'a fi luga alcarabiya waxay ku yidhaahdaan oo qayb maskaxda ka mid ah waxay tilmaamaan maalka iyo nashwadiisa iyo jacaylkiisa qaybaha maskaxda bini'aadamka ah idan waxaan leenahay maskaxdeennan ina saaran ayaa waxa kani programmed ku yihiin inuu qofka bini'aadamka ahi uu baahidan qabo oo uu jecel yahay ilaa xad hadda la leeyahay waa la sawiri karaa dhul badanoo ka mid ah maskaxdaasi waxaan leenahay haddaba bini'aadamku siduu ula dhaqmaa dadku waa 3 qaybood bay yidhaahdaan qayb baahiyaha si canaankeeda u sii daysay tijaabisay inay ka dheregto baahiyaha inay buuxdhaafisoo dheregto laakiin ma suurtooda bay yidhaahdaan bini'aadamku inuu marnaba ka dhergo kuwa naagaha iyo suuqa iyo dhanka galay ma dhergaan aadanuhu markuu fasaxay markii dambe wuu xooloobay dad iyo xoolaba wuxuu arka wuu fuulay yani waxay leeyihiin xorriyadda bini'aadamka waxa kan ma mamnuucan iyo adadeygana haddii dadka oy caadis ka noqon lahayd baahiduba iska dhammaan waxaas waxba kama jiraan reality taariikhda waxay tilmaamaysaa bini'aadamku mar kasta uu maalan qadiyadaasi fasaxo oo xadhigga loo jaro inay sii badato uun xad ay rag fuulay iyo dumar fuulay waxaasoo dhan intay dhaafto xoolo la fuulo xad bay yidhahdaan ay dhaafto qofku markuu samayn kari waayo uu daawado markuu isagoo howlgabo ay noqoto in aflaam iyo nooc kale oo uu isku dayo inuu jidh ahaan hadduu samayn kari waayey at least inuu jidhkiisa
inuu kicin karo oo aflaam ibaaxiya iyo kan xad bay gaadhay dacaaradu ay ka mid tahay dhowrka suuq ee dunida ugu lacag badan dadka waxaan ka shaqeeya tijaaraadka dunida ugu lacag badan leh xad bay keentay isticbaadaadkii dunida ka dhacee dadka la adoonsado ee ugu badani inay waxani sababaan caruur la adoonsado iyo dumar la adoonsado iyo dad la adoonsado liajli in ficladatan ay noqoto waxa la samaynayo idan ka dherig ma leh lidalik ayaa magaaziinkan maraykanka ee maxaa la yidhaha education week ka yidhaahdaan baa wuxuu qorayay maraykanka 9 sannadood waqti ku dhadhow yacni 1991 up to 2000 waqtigaa yar ayaa waxay leeyihiin meelihii xumaa lagu samayn jiray waxa kan iskaga kaaleeya iskuullada iyo meesha wax lagu barto 290,000 oo ilmood baa ictidaa jinsiya lagu sameeyey almadaaris alxukuumiya idan waxay tilmaamaysaa marka canaanka loo sii daayo bini aadamku nooca uu noqdo dee ilaahayna qur-aanka wuxuu inooga warramayaa qoomam noocan oo la halaagay markii ay canaanka u sii daayeen waluutan id qaala liqawmihi أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وهذا ugu horeeyay waxa kan canaanka u sii daaya taariikhdan cusub ayna hadda haynaana dad yawii ka dambeeyay bamba ma la oran jiray meeshii Talyaaniga ku taale fulkaanada ilaahay ku halaagay hadda markay qodeen iyagoo faaxishadii samaynayo dhagaxooba la soo saaray magaalo dhan oo faaxisho samaynaysa oo dhagaxaysan oo ilaahay halaagay قوم فرعون قوم لوط كي هرم هكوان كورمنا وكوا كدنبي إلهي وحكوت الماما إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء لكن إلهي ما حولي بل أنتم قوم مسرفون دد حد قد بيباتي بلدي إسراف كسميي حد قدم كسميي وحي باهدها آيات كلاوك إلهي كت الماما بل أنتم قوم تجهلون ولوطا إذ قال لقومي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ما يدنكم منقبة أو حركة يا صمين سنبالي أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون بإلهيكم المام إذن أممكو وحيابيكو هلاك سمان بكامتي حتى تاريخ يهنا دبريت المامان عصور الانحطاط البشرية ماركا يدتكو الدوميان وحيابا لغوق قياس الشري وحكم دبيت الماما مركز طو أدركت بينها دول كوينة نوع أو تنشرسدا ويبربري جرين ولذلك بقى وحكي ورمان مثلا دولة دي الرومانسكو مركي يسيب بقى يسيا وحاسيو كله رواية دي هو عن صنايع داوني دمر قاونا ولا بريتنسينية هاي يعني الرواية ومدينة سقوط ما ضل داونا يا دمر قاونا ولا بريتنسينية وحلم ده هذا نوع حيلة هاي دعوة يدعات يدد حقوق ده ودود يدد وضع إلهنا وكقرآن كله والله يريد أن يتوب عليكم أي والله يريد توبتكم إلهي يوحدون يا إذن كالتوبة أقبله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما بإلهي كون شهوات كدب الصعدانة وحي الربانين وعشاء وينسي وعتان بإلهي آدم لماذا يناك بحضان marka ilaahay uu tilmaamayo quraanka dadka lumay wuxuu ku sifeeyay inta nabiga laga soo waramay ayaa ilaahay nabiyada gadaashood fi suurati maryam anbiya ilaahay ka waramaya oo nabi ba ilaahay wax ku sheegaya rasuulan mukhlisa inuu ahaa sidiiqan nabiyan inuu ahaa anbiya ilaahay ka soo waramay anbiyada markii alla ka soo waramay kadib ba wax lagu xigsiiyay fa khalafa min ba'dihim khalfun qolada kala والنبي هذا عكس جوديو جروب كلا كضمبية جروب كاسم حي سمايا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات بإلهير صادنا وضيعين شهوات نفسك نوى الراعين فسوف يلغون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ودي جهنمي قليان إذا قيبتن كوادا إنو كور رمينا وحويان human desires كان نوعا كان هدي أن لو سمينين حكمين يقاب الله هباية تهذيب بني آدم كو إنو حولها هوس مره أو بابا وانا معاييرتا لغو قياسي كرب بلشادة بربر كيدية فرن كيدا وهي أصلا بوحاسي وحي كان إنو قرغ بابا كو
bulshana haddii gurigu dumo way mujtamac mutafakik buu noqdaa waxyaabaha guriga dumiyana waxaan fasaxeeda ka mid ah bay yidhaahdaan saa daraaddeed waxay yidhaahdaan socially bulshadu way baaba'daa haddii uu baabka kani noqdo maxay xadhi ka sii days qoladaa cagsigeeda martay oo ah waxaan problem weeye ilaahay uu dhowaanshihiisu kaa celinayaa dan waa inu joojinaaba waa qoladii ruhbaaniyada iyo baabawaadka iyo waa meeshay mareen kristanka qayb ka midi iyo midhmidh ama bariga fog diimihii lagu haystay ha ahaato indiya iyo dhulkaasi ama muslimiinta qolyo ka midi waxyaaba ay qaateen ha noqoto in la yidhaahdo wuxuba waa dembiya waa inaan laba samayn gabadha waa inaan la arag rag iyo dumar isu tegin waxba toona ilaa xad qaarkood ay soo rogeen tabatul iyo ikhsaa iyo in ragga la dhufaano baahidanba maxaa keenay soo intan maaha maa lagaba jara xididkaba dee wuxuu noqonayaa sida gela awrkii la dhufaani jiray korana soo wada baxdee in noocaasi laga dhigo laakiin iyana waa wax fitrada ka soo horjeeda walidaalika may shaqaynin ولذلك بقى تحقيقات جدا بيه فرانسيسكو وسميه الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا وحدها أيوة حاليا from 1950 إلى هدا تضوات كاسر ندود وحل عدين كرابي لين لما هضلا يسوقي مدوي وحي كلا دعي وحل عدين كراي صدح بقول يصدق كونوا الماضي نيفولين وهذا ماشي كويسي وعمله 300 صدح بقول يصدق كون أو الماضي يمكن أدي واب إسكا بابليكلي تيفي هذا الدنيا دي وكم مقشانين وحيابها انكتشرا وهي عكس الفطرة انت الدين كدغان ودن كان كسمين وهي من بحاجة كله يدي قلدان لوكاي ان طريقة الصدحات ولا بدا طريق مدنا باهين او ديسايرس كبني آدم كان إن لو فوليو لكنه حد يشو قاب مجتمعنا الدسية هالنقطة الشهوة الجنسية هالنقطة الشهوة المال هالنقطة بنين كان هالنقطة الزينة تنانا وحنود من شريعة وكوبناين كذا حلا شاهي مركز طوي حد أفتنا أما جنسي هالنقطة أما تن مالك هالنقطة تن مالك وحا مانت الدنيا ده هايستا إن ضدنا مال قبل مدد أي وسعته سيد الروكيتك وممكن الدنيا ده قيمنا أي وسعته إن باهدي يقاشدنا أنا حاجة كلا الروكيت هانو وسعته وهي سؤال أبا ولي لقيت جواب قفكم حالكم فلا قفك بنادم كم حالكم فلا يعني حاله وين النقدان مينس أتباهي هاجا كوف شنكرته قرتي انت مركات هشو يا ان لك يا ان كلو لك مركات هشو انت كلام حد كفلسه هذان هذا واحد نولان كرتا كسوقات 60 سنه يمسك ugu bixi karta 70 sanadood oo noolaan karta 70 sano maxaa kugu bixi kara leenu qiimayno nidhaano 5 milyan ka soo qaad 5 milyan mo pound baad u baahantahay 70 sano inaad noolaato wixii qarash ugu bixi lahaa bini'aadamku ku qanacaya shan u qaato inta kale iska daaya ومايا محو كفالا يا بس أشي سويدين تلي وما حين نيدس كاللو قبا ما انتان الرؤية ردنتو باهي دانو قبا ما حيتي مال وحي دادان شهوات كانوا نسكو صدر ووسائل الحياة لكن هداي مقاصد سبدلان ووحي لغو كالميسيني نولشة لكن هداي يقول نقضا وحي لون نولا وحي لون نولا هدينو مثل شهوة البطن إن أدوح عنطو هدادو نولاطو إن أدوح عنطو دويدن كاركي ما أنت الدنيدو بدنا قاعد كبقيسها إن أودمتو بدنا أوبيستي بودنتين إن برورتي ما كبضتو والإيريا يوا لا الرادين يوا لا وضاه إنها بختي ودمتي إذا وحكستو حدكي سلاردا فيو ديسايرز كان بني آدم كمدا كمان مارنتيد ولا ما جوين كره وده نولشات كبحيسة عنا كمان مارنتيد وين كمان مارنتيد إن عفور كمان مارنتيد وحن قرآن كل شيء كمان مارنتيد
لكن هذا يجو مقصد كون نقدان واحد أظن شيء هذا يجو نقدان ومركز دبتو تاجنانيسو سد ردد صحابتي قار كمدبا حماسة ضوضي deetana waxay yidhaahdeen sow shahwaadkan maaha waxayna dawakhiye gurigii nebigay tageen calayhi salaatu wasalaam gurigiisi bay soo eegageen waa loo sheegay nebigu siduu u cibaadaysan jiray waa ka dabeetana si kale isu qanciyeen waxay yidhaahdeen war nebiga isaga ilaahay baa dembigiisii horiyo kiisii dambaba dhaafay innagu waxaynu u baahannahay tiro badan leynaynu samayno haddaba si ay taasi u dhacdo desirska weynaynu joojinnaa mid baa wuxuu yidhi markaa anigu horta dumar iyo guurkoodba waa ka tegayaa naagba arki maayo mid kale isna wuxuu yidhi aniguna waxaan ka tegayaa cunno iyo habeen maalin oo dhanna waan soomanaan habeenna waan taagnaan waxyaabo noocaasi ah ayay sheegteen dabeetana nebigaa warkii maqlay uu u yeedhay wuxuu ku yidhi waryaadheen may caynkaasaa tidhaahdeen haa bay yidhaahdeen أنتم الذين قلتم كذا وكذا أنا ممكن سيدا يدبتين ها نبغى حولي والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له أنا إلهي إذن كنا عبسب بدن إذن كنا تقوى بدن رواية غاركودنا إذن كنا أقوم بدن ويا أقوم توحني كدلشة إنما يخشى الله من عباده العلماء أنا إلهي إذن كنا أقانا لكن anigu waan soomaa oo waan afraa buu nebigu yidhi oo waan tukadaa oo waan seexdaa oo dumarka waan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minni sunnadayda ninkii ka wacda aniga igama mid aha muxuu tilmaamayaa qoladan tidhi gamtaannu u joogsanaynaa kuwaas waddadoodu ma saxna laakiin waddadu waa meel dhexay diintu inoo tilmaamaysaa walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan walaa taqrabu الzina إنه كان فاحشة وساء سبيلا قفكو مال دحي إنو يمادو نفط إنو كنترولي كرو نفتي سينو كنترولي كرو والشهوة بدون قيدنا ما صعوته هدايتا هاي أرق يدو مركو دحيسا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض بو إلى هيك التلمام كي قلبي وبكان كجيرو وبكان بيحد قاريسا إذا waxaynu nidhi waxa kan ilaahay baa inagu abuuray waa mid waa baahi aynu qabno waa laba sidee baynu u maamuli karnaaba markaa isweydiinta leh ama u cilaajin karnaa aayadda inta ugu dambaysa ilaahay wuxuu ku tilmaamay dhalika mataacu alxayaati addunya markii 60 shayba ama 50 shayba la soo tilmaamay waxa la yidhi dhalika mataacu alxayaati addunya kaasi waa bidhbidhka nololeed waa in yaroo lagu tamatuco nolosha adduun macnaa ku jira muxuu yahay halkan umaydan imanina awalgiin joogtaan ee waxa u timaadeen ashyaada tani waa waxyaabo la idinku itixaamayo lilibtilaa waa la idinku itixaamaya laakiin halkan maaha meeshii aad joogayseen ee wallahu cindahu xusnul maab ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noqosho fiicani xaggiisa jirta kow qofku marka koobaad desirska waxaynu xadayn karnaa inaynu aakhiro fahamno inaynu garanno halkan muddo yar inaad joogayso sida awgeed haddaad dhowr bilyan oo lacaga ururiso waad isdhibtay una you will die waad ka tegaysaa adunbaa ismashquuliyeye waad ka tegaysaa sida awgeed waa inaad ku tala gashaa waxaan maxaa aakhiro kaa raacaya maxaad nolosha kaga qaban karaysaa maxaad beddeli karaysaa ururintu maaha maqsad inaad ururiso agtaada taallo yani qof baad arkaysaa subaxii ka lahay oo ilaa habeenkii shaqaynayey oo habeen iyo subaxba saa u wada oo inta xoolaa le ah oo inuu ururiyo unu nool waxaan u garanin hantidu maxay qiimo leedahay markaa yani muxuu ku falayaa qofku walidaalika baa ilaahay aayadda ku xigta wuxuu leeyahay قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم وارما يدين شيقابا إلهي سبحانه وتعالى واحتن يدين كخير بدن وإلهي كعب صدا وهداد جنات يبارة أزواج مطهرة وحن هداد ربطوه ماشي على قد ما نبي شرتابا إلهي سبحانه وتعالى جنو
هي آخرة جرتا إذن ككوات وحن لغو حدين كرا وين قيمة الحياة قرنا حياة الدنيا هي حقيقة دا وين الفهمنا كاللبات وين قرنا آخرة سينوغو ليسن لهين وقفك بني آدم كوين نغضا قول كيسا كما دنبايستاهي إلهي سيدو رالي قالين لها جنة دا انتان ليك سيدو هيلي لها أدو your goals لما انتو دا أهداف دا لما يكون سو كوبمان guri yaroo ballaaran oo aad sariir u kaga seexan doonto gawaadhi tiro badan oo aad mid u ka fuuli doonto iyo lacag tiro badan oo ku mashquulisa uun nin nimanka waxaysta Soomaaliyeed ka mid ah ee subax u soo galo cadhaysan dabeetana nin raggii ku dhadhawaa baan ku yidhi odaygan maalintaan maadaama waa cadhaysay maxaa ku dhacay wuxuu igu yidhi subax walba waxaa loo yimaadaa waxaa loo sheegaa kambani ballaadhan buu leeyahay kambanigiisa wixii ka lumaya problems jira subaxii lagula soo kala habeeyo subaxii markuu xafiiska yimaado report baa la siiyaa meel heblaaya intaasaa luntay qoladii xaggaasi waxoogaagaas way la dhuunteen kuwa waxaase ka dhacday halkaa mushkilada looma sheega buu yidhi subaxii markuu soo galo saaka 400 kun baynu faa'iidnay cidi kuma tiraahda buu yidhi laakiin negativeska loo soo ururiya markaa subax walba uu cadhaysay maxaad ka faa'iiday markaa hantida kuu biirtay haddaad subax walba cadhoon ka qaadayso iyo mushkilad jirta maxay kugu kordhisay ilaahay wuxuu ina yidhi wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa can ilhawa faina aljannata hiya alma'wa qofka miqyaaskiisu waa inuu ka noqdaa ninka naftiisa ka reeba baa la yidhi can ilhawa yani dabdi nafs nafta waa inaad kantrooshaa وينت كنتروشة معناه دوا محي مثلا أمثلة بسيطة عنا هداد ودك ور شو تشين ويدو ومركي علوشو ديركتات راه بتايسر اسبانو باهني ساد انتي ادعوني جرتين كبدان هذا عنتو بنادم كأول إن بعوني جري انت أساكو في الليل waxay damceen in ka badan inay cunaan si uu in ka badan u cuno ayaa loo fakaro waxa la yiraahdaa appetizers baa laga horeysiyaa marka brima intaad cunada weyn cunina appetizers cun shahiyada ku sii furta sidoo hunguri weynaato marka dibirtaba hadana la leeyahay may hadda waxaad u baahantahay digestion ka inaad dedejiso wax daaca ka keeno hore oo ku maxaad markaa hore isu tabiris ما مركاغي هوري معناheed waxa weeyaan shahwatul batn inaad wax cuntaabad qasti ka dhigtay iyadaad comfortable iyadaad moodo wax lagu raaxaysto sida awgeed ba waxay noqotay in marna loo raadiyo wax ku laqsiya marna loo raadiyo wax maxay ka dajiye hadhowna lagu yiraahdo waxaad u baahantay saad u caafimaad inaad orodo oo boodboodo oo intaanoo marka inaad wax cuntaa haddaad control weydo waxay keentay noloshaadu dhan inay dib ku noqoto dad control weydo sadaraad nafta bini aadamka waxana waa wasaa'il ay noogu talagalay inay nolosha ku fidoysano walidaalka mar haday nooca yihiin waxaynu u baahannahay koowaad waa dabdi nafs waa inaynu control karno nafta inaad adigu hanato waad control karto maxaad cunaysaa maxaad fuulaysaa maxaad dhaqanaysaa xaggaad u socotaa waa inaad waxaad garataa noqoto saawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay war aakhira kuwa liibaanay wa amma man khaafa maqaama rabbi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن حبان صار الشيخ الألباني صحيح كنت الماما يوحولي وريانا ميدين كورماه مؤمنك هابين هذا ومن أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم بالنبي وكيدتك النفي حول بكو آمين كران مسلم كميدين شيغا وقفك أي كان نبات قلان دتكو عرب كيسي يقعنتيس رسول النبي يقول مجاهد كما يدين شيئا ومن جاهد نفسه في طاعة الله وقفك نفتيس كل الضرر إلهي طاعة ديس مهاجر كما يدين شيئا أبو النبي يقول ومن هجر عن الخطايا والذنوب وقفك إذا وحي يردن وحي والله صاكوبي قف بنا آدم ما نولشي سسدو كنترول لها وإيمانك سي واحد لغو سفايي إن أيدتك كو آمين كرا قف أمانة لأنه نقون كرا وإسلام نمدي سي واحد لغو سفايي قف دتك كان نبت قالي كرا إنه نقون كرا وجهاتك سي واحد لغو سفايي قف نفتيسة لا دقالامي كرو حدين كرا إنه نقضو وهجردي سي واحد لغو سفايي إنه نقضا محي قف ذنوبتي وحكالي كفو قادا إذا وحين لأنه كو
وأدونك إن نقيمه سكرنه أدونك إن نقيمه سكرنه أهم حينو نول إنتين ميشن شوقينا حان أباهناي حان أباهناي هذا نفط إسكسي ديس أدونك ودم بأباهنتي كم دقيقة هذا سرية لي وحساب تنتو واحد عنتية واحد عبتية ميلا دكتادو باهنتي دات صوب وحكا بدن وأون إن مقع كراديسو قبل بليونير لو يرا مو مليونير ما لعق هايستاين لو يرا هذا هو مقع كرادين تيدا بدن mararka qaarkood dadku wuxuu isugu sheekeeyaa hadday ma bataan waxan baan qaban lahaa horta jiriba laga waa markaa un bay la xijaaladu kugu sii badanaysa imka waxa soo wadaaleedin ma aan wadaan xoolo heli lahaa kan baan samayn waxaas waa amaanida dadka lagama fujiyo marka ay soo gasho waayo kama gadisnin inta haysata ee waa markaad faramarantay bay amaanida tani ay tilaadahay mala kan baad samayn lahayd laakiin markay ku soo gasho in yaruno ilaahay xoreeyo mooyaane wuxuu ku biiri doontaa kuwa kan ururinaya inuu la yiraahdo hebel waa bilyaneer ama waa milyaneer ama waa taajir weyn yani magac ka raadiya dadku hadday indadaanay maadadu qiimo agtooda ku lahayn magacana maad hesheen de mujtamac kugu xeeran baa wuxuu u badan yahay inuu waxa kan wax weyn u arkayo kaasi waa ko qaybtiisa labaad waxa weeyaan inteeda xalaasha in lagu tamatuco oo ilaahay wuxuu yidhi shahwatul farjigaasi oo kale waankii xul ayaama minkum baa la yidhi wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum kuwiina anguur haysanin u guuriya waxaa la yidhi kuwii waaye uun duruufaadku ay ku yara adkaadaana walyastacfif waa aayadda ku xigta walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan حتى يغنيهم الله من فضله أركو أروين ماها عداني مركا أسور تقلين هذا ورسنا تباليري سوقها كشلا ما ورنين هل عداني مركا أسور تقلين سيدان باصح ضاي هذا ورسنات شيء قال بعد إنه تلمامنا وحوي أنا شهوات النفس اللي وكان ترولها إنه إلهي بريدي سبضنا ونبي الله يوسف إلهي قرآن كوحينا وقلت المامين خطر لقليي oo gabadh boqortooyada ka tirsan oo qurux badan oo kana iyo waliba dumarkii la waday iyo kooxahaas oo dham intay u heshiiyeen in xuma lagu rido in lagu talagalay laakiin wuxuu malaad ka dhigtay ilaahay baryadiisa oo intuu ilaahay baryay ayuu wuxuu leeyahay wayla tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljaahiliin ilaahayna markaasuu leeyahay fastajaaba lahu rabbuhu فصرف عنه كيدهن إذن إنه إلهي بريدي سبتصنه وإلهي سبحانه وتعالى طريقة صح إنه ينقوها أيه أو حماها الدمان تودينا قد دوره إنه ينقود داله وحين تاكو حيقا وحويان باب السد الذرائع بي علماء ذو إلى هذا وضد حماها كوغيني سيند أوده وده كستو حاران كوغيني سيناد اسكو دايدو inaad awdo oo haddaad mashaakilka u banbaxday inaad guulaysan doonto lama hubo ya naftaadu imanka markaynu halka fadhino haddii dagaal laynooga warramo nin waliba wuxuu isleeyahay dee male waad jihaatami lahayd oo waada laakiin markay naga dul dhacdo inta jihaatami lahayd waxaan u malaynayaa inay badnayn idan wax habboon inaad adigu marka hore iskeynin meelaha imtixaanku ka jira oo adiga iyo ubadkaaga iyo carruurtaada haddaad fitanka u bandhigto cidda guulaysan doonta lama oga saa ogeed maalan shahwatulfarji markii laga warramay waxaa la yidhi ishiina laabta khalwada iska daaya tabaruj ha samaynina waxaasoo dhamme waa min baabi saddi daraa'ic si ilaahay subxaanahu wa tacaala muraaqabadiisu inagu weynaato yaclamu khaa'inata alacyuni wama tukhfi suduur ilaahay waa og yahay ishu tayxadda baa la yidhi iyo laabtu waxay qarinaysa rabbi waa og yahay subxaanahu wa tacaala idan ilaahay weynidiisu inay inagu weynaato shahwaatu nafs waxyaabaa lagu xadeeya waxaa ka mid ah cibaadaadkaagu inay bataan oo naftu
haddaad khayrka ku mashquulin weydo sharkay kugu mashquulinaysa nafta haddaad firaaqaagu hadduu bato dherigtaadu badato dee balaayadana inaad u bambaxdo waa suurtagal haddiise nafta aad khayrka ku mashquuliso wakhti uma helayso waxa kan saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy waaqimi asalaata ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaadda ooga baa ilaahay leeyahy salaaddu waxay idinka celinaysaa alfaxshaa waalmunkar xumaha iyo zinada iyo qurunka o dhan bay idinka celinaysaa idan qofku kullama uu cibaadada badsado waa albaab lagu awdo shahwaati nafsigu noocay doonaanba ha noqdaane waxaa ka mid oo ilaahay qur-aanka ku tilmaamay wastaciinuu bisabri wasalaa kaalmaysta baa ilaahay yidhi sabirka kow sabirku waa dee aayat alimaama markaynu ka warramaynay bacd alcasarkii waxaynu soo tilmaamanay imaamanimada sare ee islaamka iyo qumanaanta iyo hoggaaminta diimeed waxaa lagu gaadho inay ka mid tahay maxay lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waa yaqiin iyo caqiido qalbiga degta iyo sabir aad kaalmaysata bay idhaahdaan waayo sabarku bikulli anwaacihi oo ah cibaadada inaad ku sabirto shahwaatu nafsiga inaad ka sabirto maqaadiirta iyo ibtilaa'aadka inaad ku sabirto bikulli anwaacihi markaad isku darto ah camalkaagu inuu noqdo siduu camal saalixa u noqon lahaa sabir baa keensada si awgeed baa ilaahay wuxuuna yidhi wastaciinuu biالsabri waالsalaa wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin sabir iyo salaad inaynu kaalmaysanno qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa aakhiro mu'miniinta liibaantay kuwayt qad aflaxa almu'minuun dabeetana ilaahay wuxuu ku sifeeyey aladiina hum fii salaatihim خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظ يعني وحين كسو ورمى النور دنبا إلهي كسو أروري وحلا يدي وكوا مؤمن كالليباني وكوا صلاة دودو معناه والسمين سو خشوع يا إلهي سبحانه وتعالى كحلا مؤمن كقول استبال ليدي وكوا كان مالها اللغو غيا هذا الترد يو وحا اسكيتي waayo haddaad ka qayb gasho inaad dhowrsanaan bay u badantay haddaad meelaha fadhiisato fadhi ku-dirarka haddaad tagto aakhirka adigoo adna dacalka ka wad umaad saarki doontaa kolay reerkiina meesha ku yara maagano asraada ka dhicina waad uneen aakhirka dhinacumaad ka gelaysaa laakiin haddaad iska dayso meesha laqwiga iyo waxaan fiicnayn lagu hayo waad dhowrsanaanaysaa zakaadka kan zakaa waxa loo yidhi bay leeyihin ba namaaga waxa ka sii muhiimsan tahaarada bay leeyihin waa qofku naftiisiibuu bukhligii iyo wixii kaga dahiraya oo inuu qofku dhiibista barta iyo waxbixinta iyo farjigiisa inuu ilaashado waxaasoo dhamme waxa ay tilmaamayaan shahwaatu nafsigii dhowrkee qur-aanku uu soo tilmaamay sidii maxay uu qofku uga xoroobi lahaa idan ayuha alaxiba warka koobane wuxuu yihi desireskani waynu u abuuran yihiin waana taa maanta biologicale la tilmaamaya in la tilmaami karo marka nashwada noocaasi ku qabato maskaxdaada qaybta activeka hee shaqaynaysa gabadh markaad aragto qaybta shaqaynaysa xoola markaad hesho qaybta shaqaynaysa caruurtaa yaryar iyo jacaylkoodu markuu ka galo qaybta kuu shaqaynaysa quruxda iyo isdhiska iyo waxaa markaad samaysa iyo ziinada iyo fardaha iyo waxaa qaybta ku shaqaynaya yacni waxa la tilmaamay hormoonadii jirkaaguna inay maskaxdu awaamirtaa bixinayso ay soo daynayso maskaxduna inay shaqaynayso that means waa wax kugu abuuran waa mawducu limtixaan baynu leenahay markaa imtixaan ilcamali imtixaankii caqadiga marka laga yimaado aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat waa meesha laga rabo camalka saalixi inuu ka rakibmo sidaa daraaddeed waxaynu leenahay desireskani waxay u baahan yihiin in la xadeeyo oo aad aad u fakerto xadayntaasina kow sharcigu wixii una faray inaynu yeelno ama ka hortag ha ahaadaan oo ah taxsiin koowaad waxyaabaha precautionska aad sii samaynaysa marka horeba waxaa kaa fogeynaya ama ha noqoto cibaadaadka aad badsanayso ama ha noqoto naftaada inaad traingarayso ka adkaatid oo hawadeeda aad kontrooli kartid ama ha noqoto xaqiiqada adduunkanaynu joogno aad si fiican u fahamtid
waqti yar baad noolaan doontaa maxaad qaban waqtigaa yar waqti yar ama madaxweyne noqo ama maal yeelo ama miskiin ahaw in yarunbaad joogaysaa tan waqti badan maaha intaa yarna desireskani way kugu abuuraanayaan marnaba dhergina maysid mid intuu buuxsamaad salaada kaasi wuu dhergay ma jirto laakiin waa naftu saad u kontarasho dumar haddaad mid guursato laba guursato saddex guursato haddii lagu odhan lahaa wadwad iska wadi lahayd baahida uma istaagto mid baan guursayay labaan kuma istaagta xataa laakiin waa lagu kontrooli karaa waa waxaad at least intii aad rabtay ku gudan kartid cunadu waa taa aynu nidhi waa dee waxaabay yidhahdaan caloosha waa iska elastico waa uun tatawasac way sii ballaaran kartaa adiga arkay dad la leeyahay gurigaa lagu jabiyo waxaa lagu soo saaray bini aadam oo lagu wado loo dalbado bahalladan wax qaada waa qof bini aadama ya haa waxaa loo dalbaday maxaa la yidhaha cream dhan oo kuwan gawaadhida qaada ah inuu qofkan qaado waana cunno waxa sidaa u galay wax kale maaha gacanta iyo bahalka afkaasi isugu waday ayuunbuu sida tan noqday waa xanuun kale ku dhacayna ma jiro waa uun si wuxuu cunayu sawa kaada waa kaa bini aadamku intuu xadda dhaafay marna ordaya marna ku guraya caloosha idan soo duuduub waxaan oo dhammi waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaynu dib u eegno sidii sharcigu sheegayna wixii sharciga aynu ku fulin karnaa inaynu ku fulino oo dhallinyarada loo guuriyo ciddii loo guurin karo la baro sidii ay guri u yeelan lahaayeen meelaha imtixaanaadka iyo shahawaadkani ka jiraan laga kontaroolo adigu naftaada aad kontarooshid maalkan iyo waxaan inaanu ahayn waxaa loo nooliyey inaynu wada fahmno waxaynu ka rabnaa inay noqoto uun intii aynu ku noolaan kari lahayn ama nolosha aynu ku fudaydsan kari lahayn markaan soo duuduubo saan hore u soo tilmaamay qur'aanku أي مشكلة إنها ستدوي مشكلة نفسانية هالنقطة أما مد بلشيد هالنقطة أما مد عقيدة هالنقطة وننزل من القرآن ما هو شفاء نولش وحي وباهنا يدوردن قرآن كاسبا إيا الدوينية لكن وحي نوباهنا هاي قرآن كاين نسفي عنه فهمنا ومشاكل كما أنت الدنيا دا كتشرو أوردن إنها كما بدنا إنها كان كما بدنا إننا وحينو من مال إنتن بالله اسكو يتحامى مغريات كيديالين أديتها هي شهوة الجنس دربي قد كسوري كتابو حاكو ويري يبحل كيرات جيبك كسدتي يوح عردمي وحنفت بين آدم كاكي عيني وبديين وحايشا دوارك تاساسي وبديين هدين غطو شهوة المال ضد كان يا كلاسس كيو سميسين يا طبقات كان يا وحان عردمي dee uu dadku wuxuu struggle ugu jiraa siduu dabaqadan ku jiro uga bixi lahaa dabaqada ka guriga ballaaran laga yaabo guriga yareed ku jirto struggle-ka koowad waa guri ka weyn si aad u degi lahayd hadhowna guriga noocaas si aad u degi lahayd gaadhada wata hadhowna waa helicopter saad wadan lahayd adigoo bahana oo dhimanaysaa adwaan dhergin ayuu marid ka tagi doontaa idan waxaan leenahay war waxa kan lagama dherge aan baranna sida loo controlo oo lagu controlana wixii sharcigu sheegay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabigu ay noo tilmaamtay intaasaan ku soo koobaya sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin